deeqo diraaca geedi oo 12 sano ay ka xigtay inay dib u hesho xuriyadeeda kadib markii loo xiray xiriir ay la lahayd xarakada al-shabaab ayaa ku geeriyootay xabsiga dhexe saqdi dhexe ee xalay muddo 6 bilood ayay la xanuunsanaysay cudurka macaanka oo intay xabsiga ku jirtay mar walba la siinayay daawooyin sida ay xaqiijiyeen haweenka kula jira xabsiga qolkan waa qolka ay ku nooleed deeqo diraac geedi oo ah marxuumada ku dhimatay halkan si gaar ah qolkan waa meesha ay ku xanuunsanaysay halkan hadda aan bar tilmaamayo ayay xalay ku qurbaxday sida ay noo sheegeen dadka kula xiran isla xabsigan sariirahan yaala waxa ay ka seexan jirtay marxuumada sariirtan ayay qaybta hoose ka seexan jirtay muddo 6 bilood ayay qolkan ku xanuunsanaysay iyada oo cudurka macaanka ama sokorta qabta ugu dambeynna xalay ayay geeriyootay marxuumad deeqo haweenka kula xirnaa xabsigan waxay xaqiijiyeen in mar walba ay aad uga sheegan jirtay marxuumada cudurka macaanka markii dambana ay u dhimatay taliska asluubta Soomaaliyeed wuxuu sheegay in marxuumadani ay u dhimatay cudurka sokorta wax kama jiraan ay tahay in qofkaasi dumar la dilay ama la sumeeyay waa soo darsanaysay ilaa heer ay gaartay 6 maalin oo maanta ay ku lixtahay ay ogaa lahayn salaad ilaahay is dukan saaka ugu dambeysay marka ay ku lixeeday talaadadii isniintii salaad ay dukatay ugu dambeysay ilaa maxay ahayd saakay ilaa nafta ka bixis wax ogaa lama lahayn Cabdikariin Afrax oo ah taliye ku xigeenka ciidamada asluubta Soomaaliyeed wuxuu sheegay in intii xabsiga ay ku jirtay aad looga warhayay xaaladda marxuumadaasi malkumeedku saacadu leeyahay saacadii aan u dhamatay waxay u dhimatay oo yaani cudur hayay ana sonkor bay qabtay sonkortaas aanu marna low dhulka tagaysay marna hay noqonayso xadka ka baxaysay marka adiga sonkortaas ay sababsatay Munaasar Maxamed Cabdi goob joog